adiga iselay maanta mutabadan xiriiray wadnaya midacaawo min bariidu qooda mujacaylka maamuusay kulanti waxaan wanaagsan daabadayaal marba dunida ka joogtaan waani wasaaboy halkan ay daawanaysan waa maqal tube kusoo muuqaalkana maanta haddaba daawadeynta muuqaalku gudagelin haddii ay tahay markii ugu horeysa channelkan soo boqoto subscribe saar sidoo kalena video la gare si aad u heshid muuqaalada barta mar walba soo gelino aad xiiso leh haddaba jaceylka maxaa kala socotaa Habi Axmed iyo sidoo kale Cabdifataax Albakri waxaan sidan ognahay waxa baraha bulshada la isdhex maray hambalyo loo dirayo Cabdifataax iyo sidoo kale gabadha social media caanka ka ah oo lagu magacaabo Habi Axmed Xilwa iyo sidoo kale fanaanka da'da yar oo lagu magacaabo asagana Cabdifataax Albakri haddaba waxa hambalyo la isdhex maray baraha bulshada khaasatan barta YouTube-ka iyo sidoo kale TikTok oo la isdhex maray hambalyo lagu hambalyanayo arooskooda Cabdifataax iyo sidoo kale Habi Axmed waxaa la sheegayaa Cabdifataax iyo Habi Axmed jaceylkooda mar dhow inuu soo shacbixi doono iyo sidoo kale mar dhow arooskooda u dhici doono si kastaba ha ahaatee Cabdifataax ayaa waxa ognahay sidoo inuu fanaan yahay salka kalena ognahay gabadhan ayadana sidoo kale ay tahay social media isticmaasho balse waxaan ognahay inay la socon jirtay wiil asagana sidoo kashka iyo Habi Axmed inay ka wada dhaxayeen xiriir haatan dadka ay ku tilmaamayaan Habi Axmed inay laba wajiilo tahay maadaama waxa yeelay inay ka tagtay wiilkani ayna aadi halkaasi ay haatan jacayl cusub la sameysay wiilka asoo fanaanka sidoo kale lagu magacaabo magaciisana uu yahay Cabdifataax Albakri arintani ayaa dadku waxa leeyahay murugana dhalisay balse si kastaba ha ahaatee dad caame ayaa ku faraxsan Habi Axmed iyo Cabdifataax jaceylkooda maadaama ay hambalyo kala duwan ee u marsiinaan barta baraha bulshada haddaba waxaan ognahay Habi Axmed gabadha lagu magacaabo inay maalmahan la eedeynayo inay fanka ku biirayso maadaama ognahay qamar suugaani fanaanka lagu magacaabo maalmo hore inay hees la soo qaaday ee haatan dadka leeyihiin Habi Axmed waxay mar dhow goor dambe ku biiraysaa dhanka fanaaniinta sidoo kale halka wiilka asagana fanaanka ay jacayl isla dhaxmarayaan oo halka jacayl isla dhaxmarayaan balse waxaa sidoo kale la sheegayaa Habi Axmed inay mar dhow ku biiri doonto dhanka fanaaniinta maadaama ay xaggaas u sii badanayso balse jaceylkani ayaa bariyahan social media ku soo jaanbaxay Habi Axmed balse hal dadka qaar ay leeyihiin jaceylkani waa prank ilaa haddana macnooda la fahmi laayay inta dadka qaar dadka caame badana ay u hambaleenayaan ay leeyihiin hambalyada kala duwan ee u marinayaan baraha bulshada balse arintani ayaa ilaa hadda la fahmi karin waayo waxa waa social media ilaa hadda lama aqaani karo waxay Habi Axmed ay soo fadhiisan kartaa barteeda waxay ku dhigi kartaa waxani waa prank ilaa hadda jacayl ma jiro sidoo kale arintana way noqon kartaa run waayo waxa la fiirsan karaa ayadana loo malayn karaa run balse ilaa hadda xaqiiqda dhabta anaga ma sheegi karno balse waxaan ognahay dadka kala duwan mar walba marka ka dambayso inay soo badhiyaan jaceylkooda ayna hambale bogaadin dadka qaarna awoodayaan kuna faraxsan yihiin haddaba xafladani markay ka qayb gashay Habi Axmed jaceylka la isla dhaxmaray ayaa wuxuu sababay Habi Axmed iyo sidoo kale Cabdifataax inay meeshan jaceylkooda ku soo bandhigaan balse dadka indhahooda ay ka akhrisanayeen Habi Axmed iyo Cabdifataax inay jecel yihiin si kastaba ha ahaatee waxaa lagu tuhmayaa jaceylkooda gorroonayso xanshaxan bixi doona miyaan karayaa xabiibi intuu xiisu way qaado xaggaaga ayaa ma joogo inaan dib xumaan ka keeno miyaan karayaa xabiibi inuu xaasinta dhexdeena intuu xiqdii ku beero xiriirkeennana xabaalo waxaa tahay ruux xariira qofkaan xusheen jeclaaday waxaan ku xasilay agtaada naftaan ka xiiso go'ayn waxaa tahay ruux xariira qofkaan xusheen jeclaaday
haddii ay tahay markii hore channelkan soo booqato subscribe saar si aad u heshid muuqaalada barta mar walba aan soo galno aad xiiso u leh sidoo kale videona like gare sina share gare waanigo Zahboy inta ku kulmi doona muuqaalka xigo adiga idinka tagay sidaas iyo nabadgelyo.